موسى إلى سومالدو ولا يسحنتا waxay qoranayaan dadka qaarkii Muuse war ninkaasi waxa weey nin gacan ku dhiglaaho maxaan ku rahay dadlaayo iyo ninkaas taariikhdiisa waa la qoranay waan maqlay waxa la qoranay Muuse bixi war waa nin qabiiliyaho reesa material maxaan ku rahay iyo Saad Muuse ya Saad Muuse haduu habar gaaraba waa nasiib soo adiga yaa la qoran qaar baa caynka ku neef waxaan daddeed suuqa ku jirta soo adiga mis qaarkood waxay qoranayaan Muuse war de askari ninkaas iyo wax kala ma garanay askarinimo unte waxba dhageysan maayo waa askari de qalabsan waxaas la goornay anigu Muuse waan bartay Amuudna waanu ku wada jiri jirnay secondary-ga Amuud waan bartay aad iyo aad baan u sheekaysan anu waxaan hayaa caawa oo ila doonayay in la wadaago Muuse dhowr amuurood oo aan ku arkay oo loo baahan yahay ummadda inteeda kalena inay aragto oo ay ogaato innaguna haddaynu xisbigiinahay inaynu iibino oo aynu sii sarrifno oo meel walba ay gasho soo dhammaadkan maxaa ugu horeeya waxa ugu horeysa de Muuse waxa weeyi aniga sida ila tahay taariikhduna dhigaysa qof qayb hoggaan kaga jiray urur dagaal adag soo galay sida wadankan looga badbaadinayo dawlad khaayistay oo maxaan ku rahay violent hayd oo dictatorship sida looga badbaadayo wuxuu kamid ahaa dadkii oo ahaa hormuudka ee arinta soo galay buu de taasi waa in la siiyo garashadeeda iyo maxaan ku rahay sharafka ay leedahay qofka in la siiyo leadership halka ka soo galay waqti adag oo dagaal adag lagu jiray oo wadanka la doonayay in laga rido ya dabayshii waa leedahay dictatorshipka ee wadanka baabisa taasi waa koob talabaad Muuse de wasiir buu soo noqday maaha nin intuu shalay meel kale ka yimid iska fadhiistay oo waligii shaqad dawladeed aan qaban ma ah waa kii wasiirka dakhiliga wadanka ka ahaa waqti soo adegarmis marka wuxuu leeyahay experience sida wasaarad loo maamulana wuu leeyahay tasaddexaad Muuse bixuu leeyahay ku bartay waxa weeye ingiriiska waxa la yiraahdaa resilient waxa weeye qof adkaysi badan de qof taariikhdiisa dirsay baa taa ku sheegi karade inta good baholood ku dhacay uu ka soo baxay uu ku dhacay uu ka soo baxay uu ku dhaco ka soo baxay marka qofka caynkaasi haddii aweyna hor socdo waxaan anigu isleeyahay waxa weeyi dabeelaha inagu dhacay ilaa adduunyadu dabeelo badan bay leedahay inuu noqonayo qof markiiba aan liicin ee adag oo leh maxaan adkaysiga caynkaas taafraad ee soo raacda waxa weey anu waxaan ku bartay Muuse inuu yahay qof ku dhacleh oo bal hay hadeenu taayel balaha hadda malaha sidaas meeyde kuwaasayna nici malaha de reebel basaan noqon malaha sidaas oo de immobile marka aan dhaqaaqiba karin maba dhaqaaq karin Muuse anu waxaan qabaa waana in badan waanu sheekaysanay de maxaan 50 saacadood waxaasaynu yeeli oo ka fikiri hadday maskaxdiisa gasho aad qanciso ku dhacwulay wuxuu qoranaya we will do it wixii naga maxaa seerka wixii day naga soo noqdo waa halkeega de shafkaynu u dhigani laakiin we will do it Somaliland waxay u baahan tahay waqtigiiba waxaan ku waatan idin waa crossroads waxay leeyihiin maqaadiiro badan baa xiran waa in la helaa leadership laabta u dhigan karaysa arrimaha culus in hor yahay resilient ku dhac buu leeyahay Muuse ta ku xigtaa waxa weeye Muuse anu waxaan ku bartay intiina taqaanaana aan rajeynaya inaad ila garataan laakiin aniga aan ku qancay haddii kale ma soo galeen xisbiga hadduu Muuse bixi aw yahay qofka xisbiga madaxda oo waxaan sheegaya aanan ku arag why would I want to join the party I wouldn't so the mother waxaan ku arkay Muuse waa dhageystaa anigu in badan baan soo hor fadhiisanay professoradana haddaad hadalka u furto taadahay balan wada hadalno de professor kalmada ingiriisiga professor kada waxa la yiraahdo kalmadu waa professor waxa weeyi hadalka siida
marka professorkuna wuxuu noqonayaa kii hadalka sii daynayay dee muuse waanu ishor fadhiisan professor baan noqda waan sii daayey saacad buu sidaa ayuu hor fadhi hayeedaa haya soo de garanaysa dee haddii sida la moodayo dadka qaarkii ay leeyihiin kolkaan 5 daqiiqo hadloon leh waarda iga daadi anigu dee maxaan ku dhahay iga daadi wuu iska kici lahaa waa aad iyo aad qof wax u dhegaysta wey aad iyo anu waan tijaabiyey walaalayaal qof aad iyo aad wax u dhegaysta taasina waxay ku tusaysaa samir baa ka hooseeya dhegaysi haddaanad samir lahayn ma dhegaysanaysid qofka soo madgar taasina waa ta u dambaysa muuse in anigu aad iyo aad isku raacnay inaanu aanu samaysano partnership waxa weeye xisbiguna au og yahay waxa weeye muuse wuxuu aaminsan yahay waxa ingiriisiga lagu yidhaaho good governance maxay tahay waxa weeye dowladnimada in kor loo soo qaado good governance kor loo soo qaado ya maamul dowladeed in kor loo soo qaado xafiisyada dowladda shaqada ka socota in kor loo soo qaado dadka shaqooyinka loo dhiibayo in kor loo soo qaado in other words managementka waddanka iyo dowladnimadeenna inaanu kor u soo qaadno good governance dee taasina anu waxaan qabaa inay khayr weyn tahay dee haddaanu qofku garanaynba dee good governance waxay tahay maxaa laga dooran dee u qabani qofka soo maadga taasina muuse wuu leeyahay waxayba waa caqiidayba u tahay annagoo waanu is aragnaa at least once every 2 days or a day had iyo jeer taas way kala hadlayaan good governance samataro isaynu good governance u samaynayno arrintaa ha laga fikiro doorashaduun yaan mashquul noqon after the election waxaynu yeel waan laga fikiro